waayaha khiyaarta nala socota soo dhawaada mar kale meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa stan waxa ay ka faa'iideysanaysaa isbedelada ku dhacaya siyaasadda madaxweyne Trump iyadoo Islamabad ay furtay baal cusub oo diblomaasiyadeed oo ay doonayso in ay ku dhabarjabiso wadanka Hindiya. haddaba qorshaha la yaab kale ee dowladda Pakistan ay banaanka soo dhigtay maxaa laga yaqaanaa warbixin aad iyo aad ashqaraar u leh uu qoray wargeyskada Foreign Policy oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dibadda ayaan idinla wadaagayaa khiyaaray oo ku saabsan iskaashi loo arko inuu caqabad ku noqon doono dalka Shiinaha iyo Hindiya oo ay Pakistan la furayso dalka Mareykanka. markan Pakistan ma ka maarmaysaa dowladda la yiraahdo Shiinaha? warbaan arrinta idinkaga haya oo aan ku eegi doona dhigaalka uu wargeyskan sameeyay. dhinaca kale nidaamkii Israa'iil ahaa mar kale ayuu bahdilaad ku sameynaya dowlad Carbeed. Jordan waxa ku dhacaya lama malaysan karo. qubarada militarigana waxay leeyihiin tani waxay u muuqataa in Carabta meel fagaara ah geed lagu xiray. haddaba Israa'iil ayaa maanta ku dhaqaaqday dhismaha gidaar weyn oo ay ka dhisayso xuduudda dhulka ay Falastiin ka haysato ee xiga dhinaca iyo wadanka Urdun. dhismahaasi ayaa gaari doona ilaa iyo 500 oo kiiloomitir waxaana ujeedadu ay tahay baa la yiri in looga hortago dhaqdhaqaaqida tahriibinta hubka sida ay tilmaameenba Israa'iil. hase ahaatee qubarada militariga dowladda Urdun waxay leeyihiin tani waa ceeb iyo fadeexad Carabta haysata mana aha in laga aqbala Israa'iil. maxay tahay walaaca laga qaba Iran oo darbigan loo dhisayo? barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan sidoo kale. intaan barnaamijkan joognay khiyaaray arrin kale oo naxdin la ayaan idin kula wadaagi doonaa. waxaa kamid ah ninkii Falastiiniyiintu ay ku hanweynaayeen oo la oranaya haddii ninkii Maxamuud Cabbaas ahaa meesha laga saaro waxa uu awoodi karayaa inuu Falastiiniyiinta isku keeno ee xabsiga ugu jiray Israa'iil. Marwan Barghouti waxa hadda lagu gorgortamayaa waa la dilayaa iyo lama dilayo. warbixin uu qoray wargeyska Ra'yul Yawm ayaan idinla wadaagayaa oo markii ay soo baxdaba aad la yaabi doontaan waxa meesha yaala. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan faaqiidaadan kuugu hayaa. khiyaaray soo dhawaada YouTube-ka ku soo biiro oo subscribe saara, share gareeya, muuqaalka like saara, saaxiibadiina la wadaaga qaybta hoose ee faallada. ma ku daashay safaf dhaadheer iyo khidmado qaali ah marka aad doonayso inaad lacag dibadda u dirto? ma ka walwashay in lacagtu wakhtigeeda ku gaari doonto ehelkaaga? ma kaa raageen lacaga aad ku tala gashay in lagu bixiyo iskuul ama maalgelin ganacsi? Safari Remit ayaa kaa haqabtiraysa baahiyaha. waa adeeg lacag diris online ah oo kuu sahlaya inaad lacag dibadda ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada. waa adeeg fudud, degdeg ah, ammaan ah, khidmadiisuna ay jaban tahay. Safari Remit waxa ay kuu saamaxaysaa inaad lacagtaada gaarsiiso dadka kuu muhiimka ah meel kasta oo ay joogaan, goor kasta oo ay u baahan yihiin. booqo barteenna www.safariremit.com. Safari Remit, lacag dirsasho ammaan ah iyo tayo sare. dalkii ahaa Pakistan sidaad la socoteen wacdaro ayuu ka dhigay dagaalkii bishii May 4 maalin socday oo la galay wadanka Hindiya kadib markii la soo riday diyaaradii casriga ahayd ee Rafale oo ay ku dhaaranayeen warshadaha wax soo saarka wadanka Faransiiska. tallaabadaasi waxa sabab u ahaa markii diyaaradda ay Shiinuhu sameeyeen J-10 la yiraahdo ee uu ku xiran yahay gantaalka BL-15 lagu soo riday diyaaraddaasi. hase ahaatee dunida ayaa markaasi indhaha ku qabatay awoodda ciidamada Pakistan ay leeyihiin wadankan oo ah mid leh kuna gaashaaman hubka nuclear-ka. hadda isbedel siyaasadeed oo weyn ayaa ku dhacaya, laakiin qubarada qaar ayaa ku tilmaamaya in Pakistan ay la soo baxday siyaasad furfuran oo Trump mararka qaar u muuqan karayaba in lagu sasabayo siyaasaddiisa amuraha dibadda. maadaama markii hore uu Hindiya aad u taageersanaa Pakistanna dhinaca Shiinaha ay kaalmo ka helaysay, hadda Hindiya iyo Mareykanku waa kala dhaqaaqayaan sabab la xiriira in dowladda New Delhi Narendra Modi uu hogaamiye laga furfuri waayo Ruushka iyo iibsashada shidaalka Moscow, taas oo Mareykanku u arkay in ay Hindiya taageerayso
dagaalada ka soconaya wadanka Ukraine maadaama ay iibsanaysa badeecada Shiinaha. marka arrimahaasi la isku geeyo Pakistan halkan waxay ka soo dhax saartay faa'iido ballaaran oo ku saabsan mustaqbalkeeda siyaasiga ah iyadoo Shiinaha haysata ayay doonaysaa Trump in ay dhinaca kala hayaan. warbixintan waxaa qoraya wargeyska The Foreign Policy oo ka faalooda siyaasadda amuraha dibadda. waxa uu leeyahay hordhaca warbixinta xiriirka Mareykanka iyo Pakistan oo muddo dheer muran iyo kalsooni la'aan ba'an soo maray haatan waxa uu galayaa marxalad cusub. maamulka Donald Trump oo horey Pakistan ugu eedeynaya inay taageeraan kooxo xag jir ah ayaa u muuqda mid dib u qiimeynaya muhiimadeeda istiraatiijiga ah. Pakistan dhankeeda waxay qaadaysaa olole diblomaasiyadeed oo isku dhafan si mar kale ay u hanato laabta Washington ayuu leeyahay wargeyska. Pakistan waxay adeegsanaysaa baa la leeyahay dabacsanaan diblomaasiyadeed oo lagu hodayo madaxweynaha wadanka Mareykanka sida ay doodan u dhigaan. waxaana ay adeegsanayaan dhawaaq madaxda Pakistaaniyiinta maalmihii ugu dambeeyay laga dhurayay oo ku saabsanaa ammaanta Trump inuu yahay nin u qalman abaalmarinta nabadda adduunka uu horey u raadinayay, inuu yahay nin nabad ka shaqeynaya, inuu yahay nin siyaasadiisu ay cadcad yihiin, inuu yahay nin wadamo fara badan colaado ka taagay joojiyay. arrimahani waxay noqonayaan mid laabta Trump u fiican buu leeyahay wargeyska The Foreign Policy. marka la fiiriyo laakiin Trump nin ay ka qaldan tahay xisaabta diblomaasiyadda maaha marka gees kasta laga qiimeeyo. Pakistan waxa ay u furaysaa dhankiisa helitaanka macdanta naadirta ah ee wadankaasi ay doonayaan waa Mareykanka. arrimaha baaritaanka sidaalka iyo tamarta ee Washington u aragto mid aad iyo aad ugu wanaagsan wadankaasi. macdanta Pakistan ay haysato ayaa waxa loo arkaa inay kaga faa'iideysanayso waa Mareykanka ama uga faa'iideysanayo isku dheelitirka waxyaabihii uu Shiinaha ka heli jiray ee ahayd macdanta naadirka ahayd ee warshadihiisu ay ku shaqeynayeen. arrimahan marka la fiiriyo waxay caqabad ku noqonayaan baa la leeyahay dowladda Hindiya oo isku arkaysay in Mareykanka ay u tahay midda ugu weyn ee muhiimka u ah gobolkaasi. haddaba General Qasim Munir iyo waliba ninka wadankaasi hogaamiya waa Pakistan waxay hadda arkayaan fursado waaweyn oo gobolkaasi koonfurta qaaradda Aasiya ay uga noqon karaan xidig halkaasi ka shidan oo Washington ilayskiisa laga arkaya sida diblomaasiyiintu ay ku doodayaanba. bariga dhexe aan ku keeno kana soo kaxeeya koonfurta Aasiya. nidaamka Israel waxa ay maanta ku dhawaaqeen inay dhisayaan gidaar loogu talagalay amniga oo la xijin doono dhinaca wadanka Lebanon. arrintan ayaa wasiirka amniga Israel Katz lagu magacaabo waxa uu leeyahay ujeedadu waxay tahay in aynu ku sugno amnigeena iyo xasiloonideena. waxaana halkan lagu soo gabagabeynayaa goodintii iyo waliba handidaadii ka imaanaysa buu leeyahay dowladda Iran sida uu dooda u dhigay. laakiin qubarada Jordan ka soo jeeda waxay leeyihiin tani waa bahdilaadii ugu dambeysay oo carabta ku dhacaysa marka la fiiriyo sida ay hadda wax u soconayaan. haddii aan eego marka wargeyska Ra'yul Yawm waxa uu leeyahay Israel waxa ay bilowday dhismaha qaybta hore ee gidaarka amniga ee la xijin doona baa la yiri guud ahaan xadka ay la wadaagaan Jordan sida ay ku dhawaaqeen wasaaradda amniga Israel. gidaarkan cusub ayaa waxa uu dhirar ahaan gaari doonaa ilaa iyo 500 oo kiiloomitir oo xiriirsan baa la yiri laga soo bilaabo koonfurta buuraha Golan ee la haysto ilaa la soo gaaro Halud Samar oo ah waqooyiga Eilat magaaladaasi lagu magacaabo oo Israel ay u dhiseen in lagu dalxiiso. waa meeshii haddii aad xasuusan karaysaan barnaamijyadii aan sii daynay kooxda Xuutiga ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn cardaadiqada uga dhigi jireen. wasiirka wasaaradda amniga ee Israel Katz ayaa yiri ilaa iyo 80 kiiloomitir ayaan ka bilaabi doonaa dhismahan waxaana ku bixi doona lacag 500 oo bilyan oo dollarka Mareykanka gaaraysa. ujeedadana waxay tahay buu yiri in looga hortago Iran inay halkaasi soo geliso hub iyo waliba in ay daanta galbeed ku daabusho waxyaabaha ay doonayaan. waxaan u malaynayaa darbi baa la dhisayaa maxaa macnaahay leedahay. macna ka weyn baa meesha yaala darbiga. waxa meesha ku jira maalmihii ugu dambeysay dowladaha Carbeed dooday wadeen. Sacuudiga kamida, Qatar baa kamida. doodahaasi waxay ahayd
in aanay geli doonin heshiiska caadiyeynta diblomaasiyadda Israa'iil iyo wadamada Islaamka iyo Carabta haddii aan la aqoonsan dowlad Falastiina oo caasimadeedu ay noqonayso Qudusta Bari xuduudihii 1967 loo celin doono. laakiin si taasi loo soo gabagabeeyo Israa'iil gidaarkan ayay dhistay waxaana ay tiri warkaasi halkan ayaa la isaga hilmaamaya. shalana waxaad ogeyd waxa ay yiraahdeen meesha xuduudda qadka jaalaha ah ee Gaza ayaa noqon doonta xadka cusub ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin, taasoo marka ka dhigaysa Carabtu markay hadlaanba Israa'iil inay ficil qaadayso ujeedadu ay tahay nin xoog leh baa talinaya. laakiin quburada ka soo jeeda Lebanon waxay leeyihiin tani waxay tahay wax aan la aqbali karin oo Carabta ayaa ku fadeexoobaysa waxan. qabiirka amniga ka faallooda ee ka soo jeeda Jordan ninka la yiraahdo Jalaal al-Abadi waxa uu leeyahay Israa'iil arrimo farsamo waa ay ka weyntaa waxay tilmaamayso, laakiin tani waa bahdil. ujeedaduna waxay tahay dhulkii Carabta in si rasmi ah loo qaato duubaboyntii Carbeed iyo boqoradii oo qasriyadooda iska dangeeya. waayahay taa markaan halkaasi ku dhaafo dhinaca wararka ayaan ku sii soconayaa caawa xiisooda uu aad u weyn yahay. ninkii ahaa Marwan Barghouthi oo wada hadallada Falastiiniyiintu ay ku darayaan waa in la soo daayo Israa'iilna ay lahayd maya lama soo daynayo. hadda waxaa la leeyahay waxaa lagu gorgortamayaa ma noolaanaya mase waa la dilayaa. sidaas waxaa qoraya wargeyska Ra'yul Yawm oo qoraal editorial ah oo maanta ay baahiyeen ku tilmaamaya in xiisadu ay si culus tahay. ninkan haddii aan si guud ku fahansiiyo Fatxu ka tirsanaa waxa uu la shaqeynaya Carafaad 2002 ayaa la xiray. waa nin siyaasad ahaan miisaan leh, waa nin dunida si furfuran oo dhaqmi karo. Falastiiniyiintan labada dhinac kala fadhisa ay haystana isku keeni karaya haddii Maxamuud Cabbaas uu meesha ka baxo. ninkan waxaa loo arkaya hogaamiyaha mustaqbalka in la diyaarin karayo, laakiin hadda warar baa soo baxaya. wargeyska warbixintiisa marka wuxuu leeyahay waxa ay soo taraya walaaca laga qabo badbaadada hogaamiyaha reer Falastiin ee maxbuuska siyaasadeed ah ninka lagu magacaabo Marwan Barghouthi kadib markii qoyskiisu ay heleen wicitaan aan la garanayn oo la sheegay in si weyn hadda xabsiga loogu jirdilo dhibaatooyin xunna loo geystay oo dhaawac ah, taas oo muujinaysa in noloshiisu ay halis ku jiraan. ururada u dooda xuquuqda maxaabiista ayaa soo jeedinaya caalamku inay ka baxayaan ninkan xabsiga uu ku jiro isla markaana laga saaro tacadiyada uu wajahayo. ninka lagu magacaabo Itamar Ben Gvir oo amniga qaabilsan ayaa hore u sheegay in ujeedada ugu weyn la xiriirta ninkan in la jirdilo ay la xiriirta baa la yiri tacadiyada uu hore u geystay sanadkii 2002 ayaa xabsiga la dhigay. waxaana haatan muuqanaya in dhibaatooyin xoogan loo geysanayo. ninkan ayaa la soo baxay siyaasad furfuran isagoo xabsiga ku jira, saameyntiisana iminka waxay u muuqataa inay ballaaran tahay. qoyskiisa taleefanka loo soo diray qof maxbuusa ayaa la soo hadlay, waxaana uu leeyahay ninkan dhaawac adag ayaa soo gaaray, maalin kastana waa la jirdilaa, raashin fiicanna lama siiyo, waxay u eg tahay nolosha in la dhaafin doono. laakiin dhinacyadan Falastiiniyiinta xataa waxay leeyihiin walaacan waa nagu sii kordhaya. Israa'iilna ma jiraan war ka soo baxay, caalamkana jooqay jaaq midna laga baxayo. ikhiyaaray tabinta labaad ee caawa iyo qubanaha Barrow Showna inta ayaan ku eebiyaa hilmaamina YouTube-kana subscribe saartaan. nabadeeno. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar